wardegdega haya hadda inaga soo gaaray daawadayaal degmada Gurceel kaasi oo sheegaya in oday 70 sano jira uu ukun dabada isaga xareeyay haatan xaaladiisa caafimaad ay aad u liidato oo lagu dabiibayo mid kamid ah xarumaha caafimaad ee ku yaala degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud haddaba maxaa sababay in oday markaasi ku sugan degmada Gurceel oo 70 sano jira uu ukun dooro dabada uu isaga xareeyo ama dabada uu iska galiyo warbixintan ayaan rabaa inaan dabcan idiin soo gudbiyo muuqaalkan marka hore la garee qaybta commentiskana fikirkaaga inoogu reeb warbixintanna si share gare oo la wadaaga asxaabtaada si muuqaalkan uu markaasi uu u gaaro wax badan ay halkan ay ku ogaadaan waa dareemi kartaa ukun qof aad nool dabadiisa iska galiya dana gelintu inay meelahan taaganta ma ahan isku xareeyo waa dareemi kartaa qatarta ay leedahay marka qatar aad iyo aad weyn ayaa meeshaas anuu ka dareemayna dadku aad bay isku warhaayaan isku qadarkeedu soo qadqaadayaan mid kamid ah odayaasha ku sugan Gurceel oo lagu sheegay daadiisa inay jirto 70 sano ayaa waxa uu markaasi daawadayaal dabada isaga xareeyay ukun mid kamid ah dadka ku sugan Gurceel ayaa waxaanu ka wareysanay bal sababta sidaas uu sameeyay odaga 70 sano jira ee ukunta uu dabada isaga xareeyay iyo sidoo kale waxyaabaha kalifay ayaan waxaan wax ka weydiiyay bal arintaas inuu sharxaad guud inaga siiyo arintaas waa jirtaa shalay ilaa xalay la maanta halaynta ugu weyneed ayaa degmada Gurceel la isku hayaa taas oo aad in oday 70 sano jiro oo ukun midaan dooradu dhaqasho kulli si lagu sheegay oo dabada iska galiyay taas oo lagu sheegay naftiisa ay qatar aad weyn galiday ilaa loola soo carro isbitaal ayaa la sheegay marka waa jirtaa arintaas walaal sababta ma lagu sheegay oo arintaas sidaas u sameeyay odaga dabada ukunta isaga xareeyay ma caafimaad qabay mise muusan caafimaad qabin runtii aniga waxa la sheegay kulli nin waayeelkuna ka dareemi kartaa mar hadii 70 sano ay gaaraan waa dareemi kartaa marka aniga waxa la sheegay inuu dhakhtar u tagay sabab caafimaad darteed oo macnaha ukunta uu isticmaal la yiri kulli ukunta si loo isticmaal yiri si ka bedelan inuu isticmaalayaan dareemaya ukuntaas ninka dabada ayuu iska galiyay naftiisa qatar bay galiday ilaa dhakhtar la geeyo emergency-ga saacado badan wala jiro la sheegay ma garad ku celi meeshaas muxuu dabada iska galiyay hadalayn weyn baa Gurceel ka jiray maanta ilaa xalay ilaa hani hore oo arintu dhacdadu ay dhacday dhacdadaas oo ay nin oday oo 70 jira oo ukun dooro dabada iska galiyay caafimaad darteed marka waxa la sheegay ninkaas inuu macnaha maartay meel dhakhtar dadka liyo ukun door isticmaal qaab leeyahay kulli inuu isticmaalaan dareemaya ukuntaas doorada ay dabada iska galiyay naftiisa qatar bay galiday ilaa istaan la geeyo naftiisa qatar weyn bay aad hadda waxa la sheegay istaalada Gurceel istaalada ugu weyn mid kamid in lagu dabiibayo waxaan ku weydiiyay maadaama arintaas arin qatar ay tahay ukuntan uu dabada iska galiyo odaga 70 sano jira bal xaaladiisa hadda ka waran ninka aad buu u liitaa baa la yiri bal ka waran hadii aad xoga dheeriyo arintaas ku saabsan hadii aad haydo waa santa wariga horta aniga hadda meeshan ka hadlayo waa degmada Gurceel bartamaheeda hadda goobta kuma ay meesha ninku yaalay laakiin sida maartay baraha bulshada way dadku dhaxmarayaan ama maartay weyn u jirta ninkii inuu caafimaadkiisa aad u daran yahay ayaa la sheegayaa istaalada Gurceel istaal kamid ah ayuu ku jiraa la yiri marka arintiisu qatar bay aad u gaartay ilaa xalay ilaa hani hore qatar bay laakiin hadda waxa moodaa inay hooga ka soo raynayso ukun dooro mid dabada iska galiyo waa dareemi kartaa oo sideediya qatarta ay leedahay arintaas ka waran bal dadku siday u hadal hayaan odo 70 sano jira oo ukun dabada isaga xareeyay reer Gurceel hadal haynta ka waran ay hadal hayaan wallahi waa arin ugu ah oo wali aan intaan kulli aan noolay wali aan maqal dadka odayaasha ama dadka kale oo maartay bulshada ay ayuuna leeyihiin wali waxna soo marmaan waa dareemi kartaa ukun qof aad nool dabadiisa iska galiya dana gelintu inay meelahan taaganta ma ahan isku xareeyay waa dareemi kartaa qatarta ay leedahay marka qatar aad iyo aad weyn ayaa meeshaas anuu ka dareemayna dadku aad bay isku warhaayaan isku qadarkeedu soo qadqaadayaan saaxiibkay adigoo mahadsan ninka dad badan marka arinta maqlaan waxay isleeyihiin ruux caafimaad qaba maaha sidaas inuu sameeyo horta isagu ma caafimaad qabay ninka dabada isaga xareeyay ukunta mise waxa weeye qaybta dhimarka ayaa dabcan laga haystay wallahi aniga shaqaantii horta marka la sheegay barnaamijkaas qofkaas inuu qof caafimaad qabin inuu fiicin aadan niyad aan ku haystay
laakiin markii baraha dadka bulshada iyo markaan dadka aad wareersanay iyo dadka maaragtay oo familkiisu ka soo jeeday markii ama la wacay ama la wareystay ama dad aan ka aragnay aan ka wareersanay waxay noo sheegeen ninkaas inuu nin caafimaad qabay kolley ku ogaayeen waa dareem karta qof waayeena qaabka isticmaal la yidhi qaab ahayn inuu isticmaalo waa dhici kartaa marka dhacdadaas markuu dhacda xaqiiqaha dhacday oo degmada Gurceel ka dhacda waaye ninkaas waayeelka naftiisu qatar gashay sida la sheegana inuu baabsiir qabay dhakhtarna u soo qoro ukun daawadeeda ukunta baabsiirkan marka qaabka uu isticmaal inuu qaab kana ahayn uu isticmaalaan inuu isticmaalaan dareemayaan